الله الرحمن الرحيم داود halkaad ka daawanayso muuqaalkan waa Timcad News Channel intaana u gudagulin mowduuca muuqaalkan walaalqaali haddii aad daawanayso muuqaalkan fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambalaalkan furo si ay kuu soo gaadhaan waxyaabaha cusub ee aan soo gelino channelkan muuqaalkan haddii aad ka hesho fadlan like noo saar sidoo kale share dheh si uu gaadho asxaabteen wixii talo ah noogu reeb commentiga hoose mahadsanid mawduuca maanta ayaan kaga hadli doonaa taariikhda allaha u naxariistay fanaanka weynaa ee maxamed saleebaan tube oo ku magac dheeraa boqorka codka allaha u naxariistay maxamed saleebaan tube waxa uu ku dhashay 1941 magaalada Laascaanood muddadii uu yaraa waxa uu ku noolaa Berbera, Hargeysa, Burco iyo Buuhoodle oo uu ku barbaaray aabihiis Saleebaan Tube waxa uu ahaa nin madow yaqaan ah kana soo shaqeeyay magaalada Buuhoodle ee Soomaaliya hooyadiis waxa lagu magacaabi jiray Shaqlan Cumar Saalib waxa uu ahaa ka labaad ee ugu da'da yar xaafadda afar carruur oo la dhashay 3 wiil iyo hal gabar sanadkii 1959 maxamed Saleebaan Tube waxa uu guuray magaalada Jabuuti isaga iyo walaalkii ka weyn oo lagu magacaabi jiray Jaamac Saleebaan Tube oo isna heesa ahaa halkaas ayuu ka bilaabay heesihiisana waxaa ka mid ahaa hooyo iyo aabe nasteexo deeqa tiiriyow ammaanada ilaahay gufaaco allamaanta ayaanta aramidu waqti iyo qaar kale oo badan stuuningeesiye ragugeedadaygahay haddan garaabka lala qaban guriyoodi maaye